waddanka Sweden ayaa lagu soo waramayaa in wasaaradaha iyo agaasinka dhanka caafimaadka ahba ay soo jeedinayaan in carruurta ka yar 13 sano laga joojiyo isticmaalka taleefanada casriga ah ama smartphone-ka. Agaasinka guud ee wasaaradda caafimaadka dadweynaha Sweden, Oliver Wigsell, ayaa ku waramayso in ay soo jeedinayaan ayna habboon tahay in carruurta ka yar 13 jirada laga mamnuuco isticmaalka taleefanada casriga ah. Waxa ayna ku doodaysaa in arrintani ay u wanaagsan tahay caafimaadka carruurta, korriimadooda iyo sidoo kale in ay ka hakadaan dambiyada ku sii badanaya wadamada Scandinavian-ka ee carruurta loo adeegsado. Waxaa sidoo kale arrintan ku dhiirigelinaya oo la barbar taagan wasiiradda carruurta iyo arrimaha qoyska waddanka Sweden, taa oo iyada qudheeda soo dhaweysay in carruurta 13 jirada ka yar laga mamnuuco isticmaalka taleefanada maadaama ay dhibaatooyin badan oo xag caafimaad iyo xag jireed iyo xag maskaxeedba ay u dhimayaan carruurta. Barnaamijkan carruurta 13 jirada wixii ka yar looga mamnuucayo isticmaalka taleefanada smartphone-ka ama taleefanada casriga ah ayaa sidoo kale waxaa hirgelisay wasaaradda qoyska iyo carruurta waddanka Norway, iyadoo wasiiradda arrimaha qoyska iyo carruurta Norway, Lena Vaxelid, ay iyadu ku waramayso in barnaamijkan uu yahay mid carruurta u wanaagsan marka la eego maskaxahaan, korriimadooda iyo caafimaadkooda. Waxa ayna wasiirad Lena sheegtay in barnaamijkan hirgelintiisa uu muhiim u yahay waalidiinta, sidoo kalena uu hakinayo dambiyada iyo gaboodfallada carruurta yaryar lagula dhaqaaqo. Go'aankan ay diyaariyeen agaasinka guud ee wasaaradda caafimaadka dadweynaha waddanka Sweden oo ay taageerayso wasiiradda carruurta iyo arrimaha qoyska ayaa hadda waxaa la horgeeyay wasaaradda arrimaha bulshada waddanka Sweden, iyadoo wasiir Jakob Forssmed oo ah wasiirka arrimaha bulshada waddankaasi Sweden uu hadda xukuumadda horgeynayo go'aankan. Arrimaha taleefanada casriga ama smartphone-ka ayaa wadamo badan ka digaya isticmaalkooda in ay isticmaalaan carruurta maadaama ay sii kordhayaan dambiyada internetka, gaboodfallada carruurta lagula dhaqaaqo iyo sidoo kale faldambiyada ay carruurta qudhooda geysanayaan, kuwa oo looga soo gudbayo dhanka aaladaha kala duwan ee social media iyadoo loo adeegsanayo carruurta laguna waxyeeleynayo. Wadamada Scandinavian-kana waxaa ku sii badanaya muddooyinkii dambe dhibaatooyinka iyo dambiyada ay geysanayaan carruurta 13 jirada iyo 14 jirada, kuwaasoo dilal iyo dhibaatooyin badan oo xooggan ka geysanaya wadamada Sweden iyo Norway. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.